waxaynu aadaynaa koonfurta qaaradda Yurub, gaar ahaan dalka Bulgaria. Halkaas waxaa ka jira caado dhaqameed duug ah oo aadan rumaysan karin. Magacaygu waa Cali Ibraahin. Ku soo dhawaada xubinteenna maanta. waa qowmiyadda Roma, kuwaas oo ka mid ah dadyooga ku nool dalka Bulgaria. Waa bulsho ka go'doonsan shacabka Bulgaria intiisa kale. waa bulsho leh suuq ay u iib keenaan gabdhaha guurdoonka ah, weliba si sanadla ah. Bulshada Roma waa 8 milyan qiyaas ahaan, kuwaas oo ku kala filiqsan wadamo badan oo caalamka ah. Badankoodu waa dad reer miyi ah. Waxaa la sheegaa inay ka soo jeedaan gobolka Rajasthan ee waqooyiga dalka India. Bulshada Roma waxay leeyihiin sumcad aad u liidata. Waa dad dulman oo aan cid dhex geli karin, sababtoo ah iyaguba cid ma dhex galaan. Caadooyinka iyo habdhaqanka ay leeyihiin ayaa ka dhigaya kuwa aan la jaan qaadi karin dunidan casriga ah ee aynu ku noolahay. Halkan waa dalka Bulgaria oo ay caasimadiisu tahay magaalada Sofia. Waa dal ka mid ah midowga Yurub. Horumar dhaqaale oo la taaban kara ayaa ka socda, balse dabaqyadaasi quruxda badan, jidadka iyo ganacsiyadaasi aadka u baaxadda weyn, waxaa ka socda caado dhaqameed aad u la yaab badan. Waxay ku nool yihiin bulshada Roma xaafado isku raran ah. Waa guryo ay iska dhisteen iyagoo aan wax ruqsad ah ka haysan dowladda. Iyaga iyo shacabka Bulgaariyiintu isma jecla. Waa dadka faquuqan bulshada inteeda kale sababo la xidhiidha habdhaqankooda oo xun awgii. Qiimaha gabadha lagu iibinayo waxaa jaangoynaya ninka laga iibinayo, waxayna ku xidhan tahay hadba siday u cajabiso ninka goobta jooga. Gabdhaha bulshada Roma sanadkiiba hal mar ayaa loo iibgeeyaa suuqyada ugu caansan iibka gabdhaha. Halkaasi waxaa yimaada wiilal ka tirsan qabiilka Roma oo guurdoon ah. Sidaas ayaa wiil kasta oo lacag haysta ku iibsadaa hadba gabadha uu ka helo. Qiimaha iibku waxa uu u dhaxayn karaa 10,000 ilaa 13,000 oo dollarka Mareykanka ah. Marmarka qaar waxaa la arkaa gabdho qiimaha si gaadhi waaya, balse faamilkooda ayaa dib u celiya si sanadka dambe qiimo macquul ah ay u marto gabadhoodu. Gabdhahan loo iib keenayo suuqyada waxaa iibsanaya oo qura ama xaq u leh wiilasha ay isku sinjiga yihiin ee Roma. Qorshaha guurku waxa uu ka dhacayaa gudaha suuqa. Waxaa si toos ah u kala baxaya isla daqiiqadaasi reerkii gabadhu ka dhalatay iyo reerka cusub ee wiilka. Gabadhu inta aysan tegin suuqa way isdiyaarinaysaa xag labis, make up iyo udugba. Iyadoo dhan kasta ka diyaarsan ayaa suuqa la geynayaa si qiimo fiican loogu helo. Gabdhaha qaar ma jirto cid iibsata sababo la xidhiidha gabadhnimadeeda oo aan sugnayn darteed. Gabadh kasta waxay timaadaa suuqan iyadoo ay ku jirto hididiilo mustaqbal oo tilmaamaysa inay soo heli doonto boqorkeeda ama suldaanka mustaqbalkeeda. Da'da looga baahan yahay suuqu waxay u dhaxaysaa 15 jir ilaa 25 jir. Wixii intaasi ka weyn ma jirto fursad uga bannaan suuqa. Si kasta ha noqotee, gabadh kasta oo buuxisa shuruudaha suuqa looma ballan qaadi karo inay nin heli doonto haddii aanay lahayn jidh iyo qurux soo jiidan karta macmiilka. Haddii gabadhu ka hesho ama ay jeclaato mid ka mid ah wiilasha goobta ku sugan, waxaa wiilka loo samaynayaa discount fiican. Taasina waxay fursad u tahay wiilka qarash badan oo ka bixi lahaa. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa xubinteenna maanta. Waxaan idinku dhaafayaa sharafi korkiina ha ahaato.